دستورنا القرآن وديننا الإسلام. عمر الديرر مفتي البلاد، فضيلة الشيخ وعلم على رأسه نار ومبانا تعريف runtii waxaan rabnaa waa sekreteerka xisbiga mucaaradka mooshinka igu keenay marka waa inaan ka soo duldhaco. ilaahay ha barakeeyo sheekhna, ilaahay noo barakeeyo isagii cilmigiisa iyo faa'iidada ummadda u galay kama qarsoona maaragtay laydka baxaya isagaa ka iftiin badan. ilaahay subxaana wa tacaala ha barakeeyo raadkii iyo khayrkii insha allah ummadda u hormariyey. ilaahay subxaana wa tacaala fi miisaani xasanaati. waxaan rabnaa marka sheekha si ay dadka ugu daydaan inuu in yar oo kooban wixii saameeyey sabab u ahaa dacwadan in uu ma aragtay uu ka dhigto inay u noqoto mustaqbal, ay u noqoto hadaf, in uu iyada uu ilaahay subxaana wa tacaala ku arsuqo. waxaan rabnaa in yar oo kooban inuu naga siiyo halkuu ka bilaabay, waxyaabihii saameeyey, waxyaabihii ku bixiyey inuu dacwada uu ka dhigto yoolka. jazaahu allahu khayran, falyatafadal mashkuura. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. دكتوركو وهرت مهدسن يهايو سيدن كينو naga yara dabciyeed moodaa aniga sheekha oo si la warka ugu dalacay Dr. Saciid uu naga diya dabciye waa ku mahadsan yahay. waa isaga laftiisu wuxuu ka baqayaa inaan ku soo jeestoon idhaahdo adiga daadaadu waa imisa horta. gaabta waa iska kaayay laaluushaya waa ka aqbalay. hal midiyar baan xusi lahaa oo aanu aanaynayo waafajinta ilaahay ka sakow oonan dadka u sheegin inta badan, laakiin si looga faa'iidaysto ayaan caawa u sheegayaa. markaasi waxa weeyaan alwaalid aabbo allaha u naxariisto waxa uu ka mid ahaa culimadii soomaalida ee akhrii jiray fiqiga iyo tafsiirka iyo cilmiga naxwaha. berberana wuu ka akhrii jiray. masaajidkan calimataan markii la dhistayna raggii horreeye ka bilaabay buu ahaa. xaaskii u horreeyey inamadu way ka dhinteen. waqti lixdameeyadii meelaha aan ku qiyaasayo ayaa wuxuu habeen ka kacay meelahan siyaarada la yidhaahdo. dadkeenu siyaara ay dhagaan soo maaha. siyaaro ballaadhan oo dadka tolku ay isugu yimaadeen ayuu iska dhex taagay. dadkana sheekh buu markaa u ahaa oo isagaa la odhanayay ducee. markaa wuxuu i waxaan idiin sheegayaa culimadii meesha fadhiday iyo dadweynihiiba xaaskii wax wiilala ma laha, kutubtiina wax iga dhexla ma hayo. waa siday dadku dee aan ka hayo riwaayada ee tawaaturka ah isku waafaqeen. marka wanka u horreeya aniga caawa ku yaboohaya ducaanadaa caawa idinkaan idin weydiinayaa bal inaan kutubta iga dhaxla inay igu ducaysaa maan idinka codsanaya. waxaa markaa mar qura dadku ay yidhaahdeen eray odhan jireenoo caamadeenna caadi u ah, allaha aqbalo ha samaato ha la helo bay odhan jireen. wixii ay aada u adkaynayaan ha samaato oo ha la helo. ereygii bay ku celceliyeen. kadibna wuu safray xaggaa kililka shanaad halkan iminka la ydhaa ama soomaalida etoobiya ay degto. laba sheekh oo ay walaalahaayeen oo midna sheekh cali dirir la odhanaya midna sheekh cabdiraxmaan dirir ayuu dumarkoodii soo dumaalay. labada sheekhna halkaasay ku geeriyoodeen. markiiba waxa calool galnay aniga iyo nin kale oo aadan la yidhaahdo isku filaan aanu nahay. sidii baanu labadayadu ayaanu ku dhalannay. intaa waxa sii raaca oo saamaynta u weynaayahay markii dambena wuxuu bilaabay dhowr iyo 10 inuu waxna abti u yahay, waxna dhalay, waxna adeer u yahay inuu u bilaabo quraanka una dhameeyo. aniguna kuwaasaan ka mid ahaa. kutubta yaryarna u dhameeyo. laakiin ugu dambayntii aniga xokayn u ahaa ku soo haray. raggii way kala shaqo tageen, wax dabadda tegay, wax meelaha kala galay. aniga xokayn u noqday markaa. adeegaa u ahaa. waxyaabo badan oo ragga kale uu ka maago ayaan qaban jiray anigu. oo uu ka mid yahay mararka qaarkood in raashinka u kariyo aayada oo joogta.
wuxuu aad iyo aad u jeclaa inaan diinta barto isagaana ii dhigi jiray qur-aanka ka sako kutubta hoose iyo kutubta dhexeba ilaa 4-5 fan isagaa ii dhigay dardaarankii u dambeeyey wuxuu ahaa markuu sii dhimanayay kitaab hebel iyo kitaab hebel iyo kitaab hebel oo aan kuu dhigay oo uu ka mid ahaa camriidiga kafraawiga cumdatu saaliga kutubtaasoo akhri ilaahay ha kuu sakhiree diintana ku dadaal dardaarankaasaa ugu dambeeyey saasaanu adduunyada kaga tegey marka midhka halkaa aan kala soo baxay waxa weeye intii ka dambaysay markuu geeriyooday waxaa aada iigu sahlanaa inaan wax akhristo mararka qaarkoodna dadaal da-da yare dhallinyarada kale aan qaarkoodba hadda joogaan aanay bixin jirin baa ilaahay ii fududayn jiray oo awooddayda ka baxsan mararka qaarkood ma garanayo kitaab aan akhristay oo aan ku soo celiyey isamaani maayo laakiin dhallinyaradu baan uga jeedaa inay inagu daydaan juhdiga iyo dadaalkaasi waxaan isleeyahay ducadaasaa door weyn ku lahayd marka sheekadan waxaan ku keenay dhallinyaroy ducada waalidku waa wax aan la sahashan karin qiimo aada iyo aada u weyn leh arrin kasta oo kugu adkaada markaad waalidka ku adeecdo 2 arrimood buu ilaahay kuu sahlayaa wixii aad doonaysana inaad hesho dadkaagana ilaahay uu kuu sahlo kuwaad adigu dhasho soomaaliduna waxay odhan jireen 3 arrimood midna kaama hadho kuftin jilib kalaam waalid iyo kaba subag haddaad subag cabto dacar baa kugu kiciyo kaa hadhi mayso haddaad jilibkaa u kuftana wuu kugu soo kacdoomi doonaa kalaamka waalidkuna duca iyo habaar mid kastuu yahay wuu ku daba socdaa marka casri fitnaa baynu joognaa waalidka ha la adeeco wax weynoo cajaabiyada ba idinka arki doontaan saameyntayda u weyn taasaan u aanaynayaa dee waafajintuna waa iska halkeedoo qofku inuu barnaamij samaysto uu ku howlgalo aad bay muhiim u tahay anuu waqtiyadii aan wax akhrisan jiray ciidaha maan fasax qaadan jirin jumcayaashana maan fasax qaadan jirin muddo 7 sannadood gaadhaysa filimada maan geli jirin sportska maan geli jirin riwaayadahana maan geli jirin arrintaasi markaa waxaa ii sahashay shay 10 sano lagu soo ururin karo 2-3 sano inuu ilaahay waafajiyo is-ammaani mayno laakiin waxaan filayaa dictoorku inuu uga jeedo uun da'yarta inaga dambaysaa inay wax inagaga daydaan ilaahayna ha inaga dhaafo haddaynu xoogaa buubuunina ku darnay way iga dhantay dictor جزاه الله خيرا فضيلة الشيخ إلهي سبحانه وتعالى هكو بركاي شيخنا قضاء وحبات كلا حكم السي وحبات فتوات شيء وحبات ديكتي وعن شكل كجرين إن واجه ذي أما يكوكتي نواقف أتكيابتي أما أتكن حذي أما كاقص لي سؤاله دتك يكوي دين جرين أما دتك أتكلا حكم السي محا كويا بنا محا عبر لقال بحكارات كحسوساتك سودو فضيلة الشيخ الله يحيي kolley dee shayga markaanad qorin aanad dabagelin sidaa dictoorka oo kale wax badan baa ku dhaafaya laakiin su-aalaha runtii aan aada uga yaabo waxaa ka mida baryahan dambe marka fatwada oo kale waxyaabo aan dhaqaninoo ahaan jirin horay ayaa kuu imanaya ruux dumarabaa maalin maalmaha ka mida waa ii timid mabay fogeynba maxay leedahay sheekho musiiba ay haysataa kala deeg hadda dhaqan xumadu halkay maraysa iyo diin la-aantu odaygii baa waxaan ka kari laahay inantiisii gabadhiisii waa tii uu dhalay ayaan ka kari laahay maxaa yeelaa sheekh waxaan anigu qabaa inaan ka furanahay ayaan anigu qabaa markaa waa arrin jiqigu noqday buu noqday haddaan idhaahdo ka car reer baan duminayaa haddaan idhaahdo ku joogo halkaasii joog arrin ka weyn weeye haddaan idhaahdo isagii u yeedh waxaaba laga yaabaa inuu idhaahdo maxaad sheekha igu sheegtay uu qoorta gooyo marka runtii waxyaabaha igu yaabadnaa ayay ka mid ahayd siyaabo kale ayuunbaan dee ugu jawaabo aan u maareeyey kuwayaalaha ugu yaab badan bay ka mid ahayd wax laga naxway fadiilad sheekh barbaa waxaan youtube-ka iyo facebook-gaba aan ka arkay barnaamij sports adoo waddada isku dhibagay oo xawli ku socda marka barnaamijkaas waxyaabihii kugu dhaliyey iyo faa'iidadii aad heshay
iyo reactionka dadkaan u baahanay jazaaka allahu khayr waad ku mahadsan tahay su-aasha adi yar fududaysay jasaaka allahu khayran horta arrinkaasi si yaro kadiisu u dhacay anigoo meel iska lugaynaya ayaa nin kabarad sitaba igu soo baxay oo dhallinyaradana watan kabaradda lagu saliday moogta isla kay sawiriyey hal min suura iyo wax un bay had iyo jeer ku qabtaan gaarigaan meel dhigtay waa iska lugaynayay wuu isoo helay waa igu qabtay markii dambena microfoonka ayuu si yaroo dhaqso ah iigu dhoweeyey kelmad yaro jeediyay oo dadkii dee aan ku dhiiri gelinaya inaanay si xaydh fadhida aanay u noqonin inay yaro dhaqdhaqaaqaan yaro dhiiriya laba arrimood unbaa markaa igaga soo noqday midi waxa weeyaan sheekhu waxay yidhaahdeen war ma wuxuu fududeeyuu fasaxay barnaamijkii kaalay ila lugee kaalay ila lugeedu show waa barnaamij iga horreeyey buu ahaayo dumarka hargeysa qaar ka mid a ayaa show ku yaro baaqay oo waddooyinkay show lugeeyaan wax kaloo kusii hoos jira garan maaye kaalay ila lugee barnaamijkii la odhan jiray kii baabu sheekhu fasaxay bay idhahdeen qolo kalena waxay yidhahaan oo sheekhiisa ka youtuber buu noqdee markaad youtube-ka isku xayeysiiya ayaanu noqday markaa taasina kolley sidaasay ahayd laakiin barnaamijka iska kadiska ah ayuunbuu runtii ahaa jazaaka allahu khayr fadiilat sheekh waxaan u gudbayaa biidni illahi